وأكون مقرأ. السلام عليكم. halkani waa BBC oo London idinkaga imaanaysa aadna ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa FM-yada barta internetka ee bbcsomali.com iyo Facebooka oo caalamka oo dhan aad inaga daawanaysaan. galab wanaagsan sida aad u dhantiin akhyaarta hawada inagala socotay waa Jimce 14 bisha December sanadka 2018 barnaamijka dooda jimcaha ee galabta ayaynu goor u guda gali doonaa hase haatee wararka caalamka waxa ugu waaweyn xogaga ku dagaalamaya waddanka Yemen ayaa heshiis xabad joojina ku gaaray dalka Sweden oo wada hadal ay ka socdeen maalmihii la soo dhaafay. baarlamaanka magaalada Pristina ee waddanka Kosovo waxa ay siiyeen ogolaanshaha in waddankaasi la kordhiyo in uu yeesho ciidamo dhinaca militariga. dooda jimcaha ee maantana waxay ku saabsan tahay xiise siyaasadeed iyo khilaaf cusub ayaa ka soo ifbaxaya Soomaaliya kadib markii mooshin soo gala joojina oo ka dhana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay soo gudbiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. taasi waxay dhalisay in khilaaf uu ku yimaado arrintaasi isla markaasna gudoomiyaha baarlamaanka uu dhinac noqdo halka labadiisii ku xigeenna ay dhinac noqdeen. arrintaasi waxa ay dhalisay in uu dhasho khilaaf iyo xiise siyaasadeed. xiisadaasi haddaba sidee u saamaynaysaa Soomaaliya gaar ahaan arrimihii ku aadanaa dib u heshiisiinta dib u eegista dastuurka doorashooyinka la filay inay dhacaan sanadka 2020 ee ku aadanaa in markaasi loo diyaar garoobo iyo arrimo kale oo fara badan. si toos ah ayaynu u falaqayn doonaa arrintaasi. dhegeystayaashana waxay leeyihiin shanta maamul goboleedka Soomaaliya khilaafkan hore ayuu ka dhacay madaxweynuhuna uu ka gaabsaday marka maanta waaba xaq in isagoo ugu soo gasho madaxtooyada Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Cali Khayre waxa daacadka Soomaaliya inay dhisanto laakiin xildhibaanadan maanta madaxweynaha soo gala joojinayna haba hor joogsado. waxaa martiino oo ah qubaro arrimahan si fiican ugu dhuun daloosha iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Cabdinuur Sheekh Maxamed ayaa barnaamijka isku soo duway anigoo Mawlid Xaaji Cabdi ayaa idin la socodsiinaya. asaatee waxaynu ku bilaabaynaa wararka BBC-da stuudiyaha Nairobi waxaa ka soo timinaya Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. Cabdiraxmaan. mahadsanid Mawlid. xabad joojin ayaa lagu wadaa in laga hirgeliyo dekada dalka Yemen ugu weyn ee Xudaydiya dagaalada ka socdeen in muddo. heshiiska xabad joojinta ee laga gaaray dagaalka Xudaydiya ka socday ee dhexmaray dowladda Yemen ee caalamka laga aqoonsan yahay fallaagada Xuutiyiinta ayaa fursad wanaagsan u noqonaysa in uu gargaar bani'aadanimo soo gaaro dalka Yemen. xabad joojinta oo aad loo soo dhaweeyay ayaa lagu tilmaamay inay tahay tallaabo horumar ah oo loo qaaday in dalka Yemen nabad lagu soo dabaalo. wararka ka imanaya dalka Suuriya ayaa sheegaya dagaalamayaasha ururka isku magacaabay dowladda Islaamiga ee IS in laga qabsaday deegaankii ugu dambeeyay ay gacanta ku hayeen. wararku waxay intaa ku darayaan deegaanka Hajin oo ay IS gacanta ku haysay in lagu qabsaday dagaal muddo 7 halkaasi ka socday. sargaal ka tirsan ciidamada Suuriya ayaa wuxuu BBC-da u sheegay wejiga labaad ee dagaalka fallaagada lagu qaadayo inuu bilaamayo sanadka cusub ee 19. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu Arbacadii shaaciyay dagaalamayaasha Kurdiyiinta dagaalka ka dhanka in uu maalmo gudaho halka uu ka bilaamayo. hay-adda xuquuqda aadanaha u dooday Amnesty International ayaa qaramada midoobay uga baaqday inay baaritaan ku sameeyaan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay xasuuqa ay dadka rayidka ah ay bishii hore u geysteen Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Amnesty waxay sheegtay ku dhawaad 100 qof in lagu dilay dalkaasi kadib markii ay dabli hubaysan soo weerareen xerada Al Nido oo ku taala koonfurta dalkaasi. Khamiistii ayuu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ciidamada nabad ilaalinta ee MINUSCA uu u sii kordhiyay in ay muddo sanad ah howlaha nabad ilaalinta halka ay ku sii joogaan.
baaritaan ay samaysay xukuumadda jabaan ayaa la sheegay in lagu ogaaday in la musuqmaasuqay imtixaanka lagu galo waxbarashada caafimaadka ee qaar ka mid ah jaamacadaha dalkaasi 10 jaamacadood oo cilmiga caafimaadka lagu barto ee dalka jabaan ku yaala ayaa baaritaan lagu sameeyey waxaana la xaqiijiyey in imtixaanaadka shuruudaha jaamacadda lagu galo iyo sida ardayda loo qaabilayaba ay wax badan ka khaldan yihiin mid ka mid ah jaamacadaha eedaasi loo soo jeediyey ayaa eedda ku gacan saydhay baaritaanka jaamacadaha caafimaadka lagu barto ee dalkaasi jabaan ugu caansan ayaa waxaa baaritaankooda la bilaabay bishii August ee sanadkan ugu dambeyn suuqa Christmaska ee ku yaala Strasbourg ayaa dib loo furay 3 maalmood iyadoo ay ka soo wareegtay xilligii weerarka uu ka dhacay iyadoo ammaankiisa aad loo adkeeyey wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Christophe Castaner oo gacan qaaday ciidamada ammaanka oo aad u hubaysan ayaa lagu arkaya afaafka hore ee suuqaasi isagoo dhiirigelinaya mid ka mid ah macaamiisha suuqaasi ku xidhan ayaa fariin qoraal uga mahad celinayo hay-adaha ammaanka sida ammaanka u adkeeyeen u soo gudbiyey ninkani weerarka soo qaaday oo la yidhaahdo Cherif Chekat waxaa toogasho lagu dilay habeennimadii Khamiista iyadoo ay weerarkaasi 3 qof ku dhinteen 5 qof oo kalena ay weerarkaasi ku dhaawacmeen ee isbitaallo yaaliin warkii idaacaddeenna galabnimo waa naga intaan dib kugu celiyo stuudiyaheena London iyo Mawlid aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan xaaji cadow oo wararka BBC-da galabta inala soo codsiinayay halkani waa BBC kulan wacan mar kale daawadayaal iyo dhegaystayaal waxaynu guda gelaynaa barnaamijka dooda jimcaha ee galabta oo toddobaadkan aynu ku eegi doono mooshinka ka taagan Soomaaliya iyo xiisadda siyaasadeed ee iminka taagan ee ka dhalatay mooshinka ay xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugu talagaleen in lagu soo golo joojiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qoraalkooda ay xildhibaanadu ku eedeynayaan madaxweynaha inuu galay sida ay sheegeen qiyaamo qaran markii muwaadin Soomaaliya loo gacan geliyay Itoobiya iyo heshiisyo madaxweynuhu ula galay madaxda Itoobiya iyo Eritrea oo ay ku doodeen in baarlamaanka iyo shacabka aan loo sharaxin heshiisyadaasi sida ay hadalka u dhigeen haddaba markii gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal uu aqbalay mooshinkaasi oo ka gudoomay xildhibaanadii soo gudbiyay oo ku saxiixnaa ay tirada dhamay 92 ka mid ah 275 xildhibaan ayaa kadib waxaa war qoraal soo saaray labada gudoomiye ku xigeen ee baarlamaanka iyo xogayaha guud ee baarlamaanka oo sheegay in mooshinkii uu buray kadib markii ay isdhintay tiradii xildhibaanada oo qaar ay sheegeen in magacyadooda laga been abuurtay hase yeeshee gudoomiyaha oo isna maalmo kadib qoraal soo saaray uu caddeeyey in moshinku uu sidiisii hore u taagan yahay looguna keenay uu yahay in la soo galo joojiyo madaxweynaha halkeedina ay ka sii socon doonto lana waafajin doono dastuurka iyo xeerka baarlamaanka waa yahay dooda baata waxaa marti inoogu ah xildhibaan Farxiye Muumin Cali qadka telefoonka magaalada Muqdisho ayay kaga jirtaa sidoo kale xildhibaanada Aamino Xasan Cali ayaa iyaduna qadka telefoonka magaalada Muqdisho ku jirta stuudiyaha BBC-da Nairobi-na stuudiyaha BBC-da London waxa ay la fadhiya Dr. Xasan Cabdi Xayle oo arrimaha Soomaaliya qabiir ka faallooda sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo in muddo ku soo jiray baarlamaanada Soomaaliya si toosana aan dooda ugu lug lahayn oo ku aadan labadan mooshinkan oo inta badan ay labada xildhibaan Aamino iyo Farxiye aynu dooda inta badan u dhigi doono gaar ahaan mooshinka iyo sharcigiisa iyo sidoo yahay ayaa sidoo kale waxa marti noogu ah Daahir Amiin Jeesow oo isna inoo sharaxi doona bal haddii ay jiraan wax dadaala oo baarlamaanka khilaafkiisa lagu keeni doono in la xalliyo iyo waliba aqoontiisii iyo waayo-aragnimadiisii horey ugu lahaa arrimahaasi gaar ahaan marka ay timaado mooshinada qadka telefoonka magaalada Muqdisho ayuu isaguna ku jira iyo dhageystayaasha oo cod iyo qoraal kaga qayb qaadanaya barnaamijka waa yahay waxaan jecelahay marka hore inaan u wareego xildhibaan Aamina Xasan Cali oo ka mid ah xildhibaanadii mooshinka ka keenay madaxweynaha waa yahay waan u wareegi doonaa mar kale aan u wareego xildhibaan Farxiye Muumin Cali oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya qadka telefoonka magaalada Muqdisho ku jirta xildhibaan Farxiye adigoo aad iyo aad u mahadsan bal waxaad warbixin inaga siisaa mooshinkan madaxweynaha laga keenay ilaa iyo intii ugu la keenay oo 9kii bisha ahayd oo hadda ay ka soo wareegtay muddo 7 ku dhow
hawlihii baarlamaankana hakad baa galay sidee wax u socdaan maxaase ugu dambeeya waayahay xildhibaan aamino haddii ay qadka soo gashay aamino aan u wareego xildhibaan aamino xildhibaanadii waxaad ahayd mooshinka wax ka saxiixay soona gudbiyey waxaa nagu maqaalaa in xildhibaano ka tirsan baarlamaanku ay ka gaabsadeen oo ay ka baxeen qaarkoodna ay saxaafadda la hadleen ilaa iyo hadda sidee u aaminsan tahay in mooshinkiini uu yahay mid taagan oo ay tahay madaxweynaha inuu ka jawaabo eedeymaha loo haysto waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed shaqaalaha BBC-da qofka ay wareysanayo oo mawlid weey waa idin salaamayaa mawlid okay magaca igeey waxaan leeyahay mooshinka waa mooshin jira xildhibaanada dhahayo waa ka baxeen mooshinkaas waxay ka bixi karaan sida dastuurka uu qorayo iyo xusaadka baarlamaanka uu qorayo mooshinkaas inta aan la qaban oo la shaabadeynin oo uusan guddoomiyaha gacantiisa gelin oo shaambada lagu dhufanin ayay ka noqon karaan warqadoodii ay haystaan haddii mar guddoomiyaha lagu wareejiyo oo uu staamkas ku dhufto oo uu saxiixo mooshinkaas waa jiraa waa sharci lagama bixi karo waxaa kaloo ka bixi karaa marka labaad oo ku xigto ka bixi karo waa markii la keeno plenary-ga oo qofkii eedeysanaa oo mooshinkaas lagu haystay hadda madaxweynaha hadda lagu haystaa oo looga yeeray baarlamaanka looga yeero oo su-aalihii la weydiiyo baarlamaanka oo su-aalihiisa uu ka jawaabo markaas haddii ay timaado cod qaadi qofka markaas codkiisuu la hari karaa waktigaas ayuu ka baxi karaayoo codkiisuu ka joojisan karaa inta ka horeysa mooshinkaas markii la tiriyey oo la aqbalay oo istaamkana lagu dhuftay kama bixi karo qofka dadkan dad waxaa jiro mooshinka waa ka baxnay leh oo haddana hoos noola soo xiriiraayo oo leh anigoo saaxiibyaala waa isqarinayey anigoo waa laysoo qasbay aniga xoogaa dhaqaalaa la ii sheegay dad noocaas ah waaye dadka waa ka baxay dhahaayo qof mooshin saxiixay asoo miirkiisa qaba waa ka bixi karaa iskiisa uga baxa uuna og yahay sharcigina yaqaano dastuurkina yaqaano waxaan u malaynaa wax cajiib inay tahay lala waayahay xildhibaan aamina waa yahay doodda way noo sii socon doontaa waqti badan waynu haysanaa aad baad u mahadsan tahay aan u wareego xildhibaanad furxiya muumin cali waad maqlaysaa xildhibaanada aad isku jaalka tihiin ee baarlamaanka ka tirsan adigana markaaga bismillaahi raxmaani raxiim waa idin salaama dhammaantiin mawliid bahda BBC-da iyo soomaalida iyo khubarada kale meesha ku jirta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maadaama ay kala go-een hadalkii maaragtay xildhibaan aamina walaashii oo intii dambe aan ka gaaray oo intii hore aanan warkeeda runtii markaan usoo laabtay mooshinka wuxuu ka mid yahay shaqooyinka loo idmaday baarlamaanka qodobo badan oo ka hadlaya dastuurkeena iyo xeer hoosaadka aan leenahay ayaa lagu qeexay waana wax inay sameeyaan xildhibaanada ay tahay banaan tahayna runtii in la sameeyo because waa shaqooyinka baarlamaanka loo idmaday intaas markaa mooshinka uga baxo mooshinka waxaa loogu talagalay inuu keeno saddex meel markii loo qeybiyo golaha baarlamaanka golaha shacabka qeyb kamid ah oo 92 ah sida loo keenayo iyo sida loo qeexayana waxay ku qoran tahay dastuurka iyo xeer hoosaadkeena qodobka 20aad eedeynta iyo xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya siiba farqadiisa koowaad ayay ku qeexan tahay mooshinka markii la qabto kabixitaan iyo ku jiritaanba wuxuu leeyahay markii lasoo mariyo habraacii loogu talagalay ee loo idmaday shuruucdeena dalka u degsan runtii waxaa kaloo loo baahan yahay markaa keenaysid mooshin iyada laftirkeeda in iyadana la fiiriyo xaaladda maanta lagu jiro ee uu dalkeenu ku jiro dadkanagana ay ku jiraan runtii
shuruucda dalka u degsan dastuurka iyo xeer hoosaadkaba waxaa la rabaa in lagu dhaqmo lana fuliyo lana sameeyo sida ay tahayna loo meelmariyo dadka walaalahayga ah ee keenay mooshinkana iyo kuwa ka baxayna waxay mudan yihiin in si ixtiraam leh dhaqankeena suuban ku salaysanna loola hadlo loona isticmaalo waayahay xildhibaan farxiyo sidaas khadka igu jira adigoo aad u mahadsan xildhibaan aamino qodobadan iyo shuruucdan loogu talagalay in la soo maro adinku ma soo marteen mise waxa weeyaan wixiina waxa weeyaan inaad sida adinka aad jeceshihiin aad wax u maamushaan ama u soo gudbisaan waxaan la hadlayaa xildhibaan aamino xasan cali muqdisho waa ku maqlaya waayahay walaal sida ay xildhibaanada sheegtay waa run dastuurka qodobo sheegayo ayaa jira mooshinka laga keenayo madaxweynaha dastuurka qodobkiisa 92 xilka qaadista madaxweynaha ay qeexaysaa haddii madaxweynaha lagu soo eedeeyo qodobkaas 92 wuxuu sheegayaa haddii madaxweynaha lagu soo eedeeyo eedeemo ka mid ah xadgudub sharciga uu ku xadgudbo khiyaano qaran iyo wixii la mid ah waxay xaq yihiin xildhibaanada oo siduu dastuurka siinaayo iyo xeer hoosaadka abraaciisa haddii la raaco in madaxweynaha loo yeero baarlamaanka looga yeero mooshin laga keeno kaasna uu madaxweynaha yimaado baarlamaanka baarlamaanka ayaa soo doortay dadkii soo doortay xildhibaanadii soo doortay saddex meelood markii loo qaybiyey hal meel haddii ay arrintaas ka biyo diido inay mooshin ka keeni karaan mooshinkaas haddii laga keenana madaxweynaha inuu hor yimaado baarlamaanka oo iska difaaco eedeymaha loo soo jeediyey oo iska difaaco sida hadda sharciga adduunka uu qabo iyo sharcigeena dastuurka soomaaliya siduu qabo qodobka 92 madaxweynaha waa inuu hor yimaadaa marka uu isdifaacaa hadduu ku guulaystana oo su-aalihii uu ka jawaabana oo sidaas hor ku noqdo oo howshiisa wato haddii hadda howlihii iyo wixii lagu haystay cadeemihii ay kusoo cadaatana waxay noqonaysaa hadda madaxweynaha waxaa soo doortay xildhibaano sharciga lagu soo doortay dastuuri ah ma aha marka in wixii la warwareejiyo oo meelo kale lala aado waa in siday ahayd ay loo raacaa waayahay aad baad u mahadsan tahay xildhibaan aamina sidaas qadkii ugu jir waa idiin soo laaban doonaa labadiinaba aan stuudiyaha b b c Nairobi London aan usoo wareego ustaad xasan cabdi xayle ayaa ila fadhiya arrimaha siyaasadda ka faallooda waad maqlaysay dhinaca sharciga xitaa laiskuma raacsan habkii loo soo gudbin lahaa doctore mooshinka si guud markaad u fiiriso marka mooshinkan iyo xilligu ku soo aaday iyo qodobada lagu eedeeyey madaxweynaha iyo inuusan sharci ahayn waxa lagu soo eedeeyey madaxweynaha markaad qiimaysay maxaa kuu soo baxay iyo hadallada labada xildhibaan aad dhegaysatay bismillahi raxmaani raxiim horta baarlamaanadii soomaaliya o dhan ama ammaan ha noqoto ama ceeb ha noqoto waxa ugu weyn ay masalan lagu eedeynayo waxay ahayd mooshinada faraha badan mooshinka wuxuu yimaadaa waqti uu ku habboon yahay waa ku raacsanahay inuusan waqti kasta macnaha mooshinada aan macnaha aysan habbooneen laakiin waqti howlaha ama broseska siyaasadeed oo waqti maalxun gaari ayaa baarlamaanka ay ku tahay waajib in madaxda markaas uu ku socdo madaxda masalan la eedeynayo masalan hadduu yahay guddi masalan hay-adda fulinta ama madaxweynaha ama cid kale xataa masalan guddiyada baarlamaanka ragda masalan qeybaha ay markaas ay ku shuqul leeyihiin ayaa baarlamaanka looga yeeraa oo su-aalaadka ay ummadda weydiin lahayd oo baarlamaanku ka wakiil yahay oo weydiiyaa ninka qofkaas mas-uulka ah madaxweynuhu kama baxsana dadka la weydiin karo oo looga yeeri karo baarlamaanka soomaaliya madaxweyneyaal hadda ka hor taariikhdeeda inkastoo aysan wax badan ba ahayn oo masalan ilaa muddo 30 sano ah iyo 30 sano oo dagaal sokeeye masalan dowladnimada aysan jirin madaxdii soomaaliya oo waqtigaas dowladnimadeeda ay shaqeyday laga soo bilaabo aadan cabdulle laguna dhameeyo masalan maxamed siyaad barre
ma dhicin madaxweyne inta baarlamaanka hor yimid su-aalaad la weydiiyey qaranka masalan danaha masalan uu ka dayacay iyo wax markaas loo qaban la weydiiyey ma aysan dhicin waxaan ognahay madaxweyne baarlamaanka masalan istiqaalo siiyey waxaa ka jira allah u naxariistay cabdullahi yuusufna breshar badan oo dhinacyo badanaa ka timid laakiin eedeemo masalan sida eedeemahan oo kale ah looma soo jeedin xaaladii macnaha dowladeed ayaa soco weyday dagaaladii masalan ciidamada Ethiopia iyo Soomaalida daba macna dheeraaday magaalada Muqdisho xaaladeedii murugtay marka xalka markuu xumaaday asaga ka digay oo ka tanaasulay hadda tan masalan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lagu haysto gudoomiyihii baarlamaanka maadaama uu leeyahay waa masalan qaybtii looga baahnaa ama koronkii looga baahnaa way soo jeediyeen oo macnaha moshinku waa sax waxaa la rabaa anigu tala waxay ahaan lahayd sidaas in loo qaato madaxweynuhuna uusan diidin in uu baarlamaanka hor yimaado eedaha loo soo jeediyey nayjarka ay leeyihiin oo laba qayb loo kala qaaday qaarna waxaa layidhi waa masalan sharci ku tumasho qaarna la yidhi masalan waa qiyaamo qaran laba dabeecaday kala leeyihiin labada dabeecad ay kala leeyihiin inuu uga jawaabaa loo baahan yahay dadka wax ku sheeganaya madaxweynaha gaar ahaan hadaad fiirido masalan madaxweynaha eedda loo jeedinayo oo leeyahay qarankii ayuu khiyaanay runtii waxay tahay masalan maaha eed sahlan ma aha eeddaas madaxweynuhu waa inuu ka jawaabaa baarlamaanka hortiisana yimaadaa ummadda oo dhanna uu ka qanciya laakiin madaxweynaha intaan la gaarinba waxaa jirta in ay ku doodayaan gudoomiye ku-xigeenada baarlamaanka iyo xildhibaanada ay ka mid tahay ay ka mid tahay farxiyo ay leeyihiin sharci looma soo marin iyo baarlamaanka qayb ka mid aha doodaas qabta anigu waxaan isleeyahay waxaa loo baahan yahay jawaab macnaha dadka qancida ama inta loo sheegay in madaxweynaha uu sameeyey qiyaamo qaran in wax qanciya ay ayagu sheegaan haddii uusan madaxweynuhu sheegin riyaaltii markay tahay laakiin arrinta oo baarlamaanka isku haysto sharciyan xagee lala aaday waatan maanta laga doodayo oo laleeyahay maxkamad dastuuriya ma jirto baarlamaankuna ma laha guddi masalan maxkamadeed ma laha gudoomiyihii baarlamaanka uu leeyahay kooramku waa dhan yahay kooramka mooshinka keen waa dhan yahay qoladaana ay leedahay ma dhama oo dadkiyaa qaar ka noqdeen arrinta waxaa moodaa in lagu noqdo macna waxa la dhihi jiray masalan murabbicii hore ama maaragtay squarekii lasoo dhaafay waxay ahayd bishii mars sanadkan gudihiisa markii masalan la rabay in xilka laga qaado gudoomiyihii baarlamaanka oon ogeyn murugada iyo dhibaatada ay lahayd iyo runtii xaaladii ay kiciday iyo xiisadii masalan aad u dhibaataysneed oo runtii madaxda dowladda oo aan masalan hebel iyo hebel dhahayn ay ku eedeysnaayeen ninkaas odaga ah oo soomaalida ay u taqiinay in uu xilkiisa si sharaf ah oo masalan oo hufan oo professional ah inuu ku guto runtii waxaan isleeyahay waxaa yimid gudoomiye kale oo baarlamaan maanta isagii iyo dowladdii ka taagan tahay af soomaali uma hayo dhibaatada waa kugu soo laaban doonaa ustaad xasan cabdixayle waa yahay waxaan jeclahay inaan u wareego qadka telefonka magaalada muqdisho xildhibaan daahir amiin jesow haddii aan khaldanayn ilaa waa yahay waxaan jeclaan lahay inaan eegno bal haddii ay jiraan in xildhibaanadu ay iskood u bilaabeen in bal la heshiisiiyo iyo wada hadal iyo dhexdhexaadin iyo nooc min al isku day isfaham ah haddii ay dhici karto inay jirto bal inaan weydiino xildhibaan daahir amiin jesow waa yahay farxiyo iyo aamino laftigooda khadka telefonka magaalada muqdisho waxaa la ii sheegaya inuu go-an yahay waan ku soo laaban doonaa waa yahay laakiin dhegeystayaasha b b c du qayb ayay ka yihiin barnaamijka qayb ka mid ayaan jeclahay inaan markaan bal hadda fikirkooda aan eegno iyo aragtidooda farxaan bashiir cali ciiro jooga magaalada muqdisho khilaafka siyaasadeed ee kasoo cusboonaaday dowladda soomaaliya kaasoo sababay kala qaybsanaanta baarlamaanka soomaaliya iyo madaxdiisa waa mid nasiib darro ah oo u horseedi kara shacabka soomaaliyeed rajo xumo taasoo ka dhalan kadha cawaaqib xumo siyaasadeed oo soo wajaha dalka xaaladiisa siyaasadeed ee guud runtii mana habboona xilligan inuu ku soo aadamo mooshinka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya
magacaygu waa Xamde Maxamed Faarax oo joogta magaalada Gabdheer. haddii aan ka hadlo barnaamijka dooda waxay la tahay run ahaantii khilaafka Soomaaliya idin soo kala dhex galay baarlamaanka Soomaaliya mooshinka madaxweynaha laga keenay waa arrin aad iyo aad u fool xun sababtoo ah shanta maamul goboleeda Soomaaliya khilaafkan hore ayuu ka dhacay madaxweynuhuna wax farageelisa kamuu lahayn wax maxaan dhahdaa wax kaga qabanayaan baka hortegidana kamuu lahayn oo ka gaabsaday marka maanta waaba xaq in isagoo ugu soo gasho madaxtooyada Soomaaliya laakiin martida barnaamijka waxaan weydiinayaa anigu haddaan ahay Xamda bal mudanayaal madaxweyne Farmaajo wuxuu kaga gudbi karaa xiisada foosha xun leh ee dalka soo wajahday isagoo waqtigii dalkan wax yar ay ku harsan yihiin hase ahaatee maanta ku casuumay dalkiisa rag shisheeye oo ku soo dhaweynaya isagoon dalkiisii waxba ka qaban karin. waa Yunus Bashiir oo jooga magaalada Muqdisho. run ahaantii aad baan u soo dhaweynayaa mooshinka laga keenay madaxweynaha. sidoo kale moshinku maahan in madaxweynuhu xilka looga qaadayo ee waa in madaxweynaha lagula xisaabtamaa waxyaabaha oo u galay oo qaladaadka ah haddii ay tahay heshiisyo qarsoodi ah oo galay oo dalkana ku keeni karo dhibaato. sidoo kale haddii dhaqaalaha la lunsado maahan in madaxweynuhu wax kaste looga haro. shalay xildhibaanada ayaga ayaa madaxweynaha doortay cidda kula xisaabtamayso madaxweynaha qaladaadka oo galana waa isla xildhibaanadii. haddii wax cad iyo lagu haystana oo baarlamaanka hortiisa iskaga difaaco haddii aan waxba lagu haysan hadii waa inaan waxba lagu haysan waa banaanka ka yaala. magacaygu waa Saliime Isxaaq Aadan oo joogta Muqdisho. dhab ahaantii xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waa mid aad u xun waana kuwa dalka dib u dhac ku ah. maanta waad u jeedaan xaaladda magaalada Baydhabo sida ay tahay waana nasiib daro in maalintii labaad ay weli qasan tahay waxaana halkaas sii gaarsiiyay xarigii loo geystay Sheekh Mukhtaar Roobo. waxaan ugu baaqi lahaa reer Baydhabo inay xaalka ay dejiyaan. xariga Roobona saameyn badan ayay ku yeelan doontaa doorashada la naawilayo inay qabsanto 19 bishan waayo shacabka reer Baydhabo raalli kama ahan xarigaasi. waxaan dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqi lahaa in xaaladaasi ay u raadiso xal nabadeed oo shacabka Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool badbaadiso. haddii kale wixii halkaasi ka dhaca waxaa eedeeda dusha saaran doona dowladda dhexe ee Soomaaliya uu garwadeenka ka yahay Farmaajo. waa hagaag aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaasha BBC-da oo ra'yigooda cod ahaan inoogu soo gudbiyey. waa yahay xildhibaanada hadda way soo laabteen saddexdoodiiba aad iyo aad ba u mahadsantihiin. waa yahay waxaan jeclahay inaan xildhibaan Daahir Amiin Jeeso u wareego. xildhibaan Daahir Amiin dooda inta badan mooshinka ku aadan Farxiyo iyo Aamina ayay u dhaxaysaa adigu laakiin waxaan kugu casuunay ka qabiir ahaan bacdama xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya muddo aad ku soo jirtay baarlamaanadii hore mooshin caynkaan oo kale hadii ay dhici jireen oo kale si guuban waxaad inooga warantaa marka arrintan kale ay timaado oo guddoonkiin iskhilaafsan yahay labadii guddoomiye ku xigeen iyo guddoomiyihii laba gees kala taagan yihiin xildhibaanadii laba gees kala taagan yihiin arrintaana kale horey ma u soo dhacday maxaa lagu xallin jiray sidee loo maareyn jiray? waa hagaag Mawlid waa salaaman tahay. marka ugu horeysa guud ahaan Afrika gaar ahaan geeska Afrika oo ku noolnahay ma dhicin weli madaxweyne oo indigenous xil looga qaaday inta aan ognahay. waxaan rabaa arrimaha noocan xilligii madaxweyne Xasan Sheekh waa in soo mareen. waxaa dhacday in 90 iyo dhowr xildhibaan ay soo qoreen mooshin sidaan oo kale ah. waxaana lagu dhameeyey markii dambe wadahadal kadib markii xildhibaano kale ay ka soo horjeesteen oo ay mooshin keeneen ay ku durayeen mooshinkaas. waxyaabaha ay durayeen waxaa ka mid ahaa dad ama ka baxay ama dad dhintay oo ku jiray dad xildhibaannimada dhanba faarujiyey oo ku jiray oo markii hore xildhibaanahay laakiin markaas ka baxay dad sidaas ahaa jiray. mooshinkan hadda wuxuu ugu duwan yahay wuxuu kuwii hore ugu duwan yahay ma jiro wax dhintay laakiin waxaa jira dad ku andacoonayo waa liiga been abuurtay anoo taagan oo liiga been abuurtayna waa dembigaas inay caddaystaan dadkii sidaas ku doodaya waa loo baahan yahay. 14 xildhibaan oo idaacadaha ka hadlay oo la xiriiray muxuu ahay hay'adaha garsoorka oo dacwoonayo oo anoo taagan baa masiixiyay la sheegay ayaan maqlaayay. waxaa muhiim marka laakiin halkaas adoo ku wata Daahir Amiin Jeeso waxay ku doodayaan laakiin xildhibaanada Aamina ay kamid tahay xildhibaanada way saxiixeen warqadda loo gudbiyay xoghaynta waa ku qornaa saxiixoodii iyo magacoodii wayna ogaayeen
haddii iyaga saxiixeen siday aamina ku doodayso oo ayaga saxiixeen oo ay caddayn u haystaan ayaga ruuxooda la dhahayo waa saxiixaya caddayn looga baahan yahay inay caddaystaan oo ay dhahaan ninkaan sida ugu baxaya ma aha mooshinka waan ka baxay ma aha tan waa liiga been abuurtay waayo waa liiga been abuurtayna ku qoro xeer hoosaadkayna kuma qoro xeer hoosaadkana sidiisaba professional wuxuu noqonayaa markii lagu kor shaqeeyo horey waxaa noogu soo lalaaban jiray markii muxuu ahaa noqdooyinka noocan oo kale ah ay jiraan waxaa noogu soo laaban jiray xildhibaan dhahaya sax mooshinkiisa la saxiixay waan ka baxay waxaa lagu qoray mooshinka mar haddii la dhiibo oo muxuu la istaambay lagama bixi karo hadda waxaa soo baxday mawduuc kale oo ah anoo taagana liiga been abuurta waad garanay mawlid saxiix adiga aadna saxiixin haddii lagu yidhaahdo waa saxiixin waa xanuun badan tahay waxaa la rabaa saaxiibada mooshinka keenay laba arrimaa u bannaan xeer hoosaadku ma qoro waa qof in laga been abuuran karo waana wax dhici karo in qofka inta badan aniga waxaan ogahay xildhibaano laleeyahay hebelow saaxiibaan ahayn mooshinkaasaan ku jiraaye makuu saxiixaa oo ma ila gelay qof banaanka jira for example oo waddanka ka maqan ayay ahaan jirtay laakiin hadda tan qof jooga oo taagan liiri muxuu ahay waayahay waa mahadsan tahay su-aashaas waxaan jeclahay raaliga ahow daahir amiin jesow aamine xasan cali xildhibaanadii mooshinka keenay aad ku jirtay ma jirtaa dad laga been abuurtay intaad og tahay adigu anigoo intaan ogahay wax laga been abuurtay ama qof sida uu sheegayo xildhibaan daahir amiin jesow uu dhahayo qof dadka dhahayaan oo telefishinka soo istaagay oo dhahayaan oo taaganaa layga been abuurtay waxaan aniga inta aan ogahay oon wax ogaalkayga uu yahay dad waxaa jiro wax laga been abuurtay anigu ma arkin mana maqlin laakiin dad waxaa jiro mooshinkan wakti dheer oo soo socday anigu hadda mooshinkan dadka ugu dambeeya ku biiraan ahay haddii ay iga dambeeyaan dad yaraa iga dambeeyey mooshinkan wuxuu soo socday 2017 2017 soo bilaabmay beri hore oo waxa loo wadi jiray waagii magaciisa ii sheeg qalbi dhagax waagiisii dadkii waagaasu saxiixay oo qalbi dhagax saxiixay kadib waxaa dhacday ma aqaan waxbaa ka dambeeyay haddana waktigii jawaari kadib dad baa ku darmay oo carooday oo xanaaqsanaa wakti kalaa kasii dambeeyey marba cidaa ku darmaysay marka cidda saxiixday waagaas horta mooshinka sidiisa ma dhaco expiration date ma laha dadkii saxiixay marka waagii qalbi dhagax oo hadda dhahaayo anigu mooshin ma saxiixin kii horaa lagu hayaa saaxiib kaagii hore ma burin ma dhicin expiration ma laha marka dadkaas waxay ilowsan yihiin dadka qaarkood anigu ma dhahaayo dhammaantooda inta sheegatay anoo taagana laga been abuurtay inta dhahayaan dhammaantooda malihi waa laga yaabaa dad yar in laga been abuurtay waa dhici kartaa laakiin u malayn maayo ilaa xadgudub qof soo taagan in wixiisa qof isku dayo inuu u saxiixo laakiin berigaas waxaa dhacday weli waxyaabo kaloo badan oo jiro oo inta aana ka sheegi karin jiro oo waagaas ku saxiixeen waayahay waa kugu soo laaban xildhibaan aamin oo kugu soo laaban doona aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad iyo daawadayaalba waxaad la socotaan barnaamijka dooda jimcaha ee waxay ila tahay saacadda afrikada bari haatan waxa ay tilmaamaysaa 5 iyo barkii iyo qadar 2 daqiiqa barnaamijka dooda jimcaha maanta waxaan ku eegaynaa sidaad la socotaanba haddii ay jiraan dad nagu soo biiray hadda oo barnaamijka la qabsanaya hadda mooshinka golo joojinta ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga keenay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay soo gudbiyeen khilaafkana uu ka dhashay ee leeyahay sharci maahan iyo waa sharci isla markaasna sida muuqatay khilaaf uu soo dhaxgalay baarlamaankii gudoomiyihii labadii gudoomiye ku xigeen iyo xaalad siyaasadeed oo jahwareer ah oo wadanka gelisay doodu si toos waxay u dhaxaysaa xildhibaan aamine xasan cali oo xildhibaanada mooshinka keenay ka mid ah iyo farxiye muumin cali oo xildhibaanada ku doodaya in mooshinkaasi aan la soo marsin habraaci rasmiga ah daahir amiir jesow oo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan qabiil ahaan ayaa isagana dooda ugu qayb galaya ku aadan mooshinadii hore iyo baarlamaanka iyo qodobo kale oo haddii ay noo suurto gasho aynu eegi doono waxaa dhexdhexaadiyeen oo ah xasan cabdi xayle oo isaguna ah qabiil arrimaha Soomaaliya ka faallooda isla markaasna stuudiyaha BBC-da ee London igula sugan martida kale dhamaantood waxay ku sugan yihiin waxay qadka telefoonka kaga jiraan magaalada Muqdisho waayahay aan u wareego farxiyo muumin cali farxiyo adigoo aad u mahadsan
xildhibaanadan ku doodaya ustaad xasan cabdi xayaan waad maqlaysa wuxuu leeyahay madaxweynuhu waxaa fiican inuu hor yimaado baarlamaanka uu ka jawaabo inkastoo adigu aadan oran karin madaxweynihii afkiisii baad u hadlaysaa laakiin xildhibaanadiinan ma idiin muuqataa xildhibaanadan kale baarlamaanka ka mid ah ilaa 100 gaaraya ee soo gudbi mooshinka si baarlamaankii uu u badbaado shaqadii dowladdana ay u furanto ma qabtaa madaxweynaha in uu yimaado baarlamaanka oo wixii eedaha uu qabo in uu ka jawaabo فرحية مؤمن علي حلوان فرحية هداي مقليسو ها وانت ذنب وإذا أرنتي قد آدسن وحن اوكي هدا سؤال شيء فهمتين وهره قل هدي كلام كوغو عليه igu celi hal mar way adigu aad u mahadsan waxaan ka cul daaranaynaa daawadayaal dhegaystayaal qadadka telefoonada magaalada muqdisho oo aad u liita mararka qaarkood in ay idinka raali gelinayna waayahay xildhibaan farxiye muumin cali xildhibaanada baarlamaanka waxaad ka mid tahay qaba mooshinkan inuu soo marin habkii iyo wadadii saxda ahayd laakiin waxaa idinka soo horjeeda oo leh waa sharci gudoomiyihii baarlamaanka oo isaguna xeerasadka la marin doona iyo xildhibaano 100 ku dhow oo aaminsan in ay tahay madaxweynaha inuu yimaado baarlamaanka hortiisa oo ka jawaabo su'aalaha ay tahay in la weydiiyo iyo waxa lagu eedeynayo inkastoo madaxweynaha adigu aadan u hadli karin afkiisii laakiin xildhibaanada Soomaaliyeed si baarlamaanka u badbaado shaqadiisina u noqoto mid meel mar ah ma qabtaa ra'yi ah mas isku soo qaaday inaba haba yaraatee in si sharci intii loo fariisto madaxweynaha baarlamaanka hor yimaado uu ka hadlo waxa lagu haysto iyo waxa laga doodayo ma qabtaa fikir caynkaasa فرحية مؤمن علي mahadsanid waan fahmay su-aashaada runtii markii hadalkayga bilowgiiba waan sheegay waan dhahay waa shaqooyinka uu baarlamaanka ka mid yahay aniga ma ku hadli karo afka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya laakiin waxaan haysanaa oo aan ku dhaqanaa sharcigaas oo ah dastuurkii iyo xeer hoosaadkii labadaba kuma qorna haddii eedayn lagu soo jeediyo madaxweynaha markaas fadhiyo inuu yimaado baarlamaanka hortiisa waxay tahay in loo gudbiyo maxkamadda dastuuriga laguna soo cadeeyo runtii eedeynta lagu soo eedeeyey ama dembiga lagu soo eedeeyey waa inay maxkamadda soo cadeysaa kadibna golaha shacabka looga doodaa kadibna sidaas ama uu ku fakadaa ama uu maaragtay sidaas uu ku baxaa annaga marka haddaan fiirinayno wixii sharci ah siduu u sheegay hadda qabiilka meesha fadhiyaba ma haysano maxkamad dastuuri ah ma qabno judiciary meel fadhiyo oo aan isku raacnay oo aan dhahnay haddii uu dhibkan yimaado ama sidan loo dhaco sidee wax loo xaliyaa oo loo qabtaa haddaad dhegaysanaysay daahir gees oo xildhibaanka wuxuu yidhi qofkii xataa la eedeeyey nooma qorna marka mar walba markay wax soo baxaan ayaa annaga xeer hoosaadkeena ku dul shaqaynaa oo waa documenti nool oo lagu kor qabanayo waa mahadsantahay halka waqti aad bacariin igu yahay doodoon wadaagi doonaa mawaadiic kale aan geli doonaa farxiyo aad baad u mahadsan tahay aaminaan siinayaa aamina farxiyo aad maqlaysaa xildhibaanka jawaabtaada waa runteed oo maxkamadda dastuuriga ah ma dhisno taasna waxay qaadatay hadda muddo 2 sano ah madaxweynaha waqtigii lasoo doortay ilaa hadda waxay loo dhisi waayeen hadda meesheeday taalaa waqtigii horena teeramkii hore madaxweynihii horena sidaas oo kale maxkamadda dastuuriga hala dhiso iyadoo la leeyahay iyo teeramkii waqtiga ka dhacay haddana 2 sano waqti dheer oo maxkamad lagu dhisi karo waa lasoo maray laakiin ma naqaan ujeedka loo dhisi waayey marka yaa iska leh in la dhiso maxkamadda waxaa iskale madaxweynaha soo shaqadiinni ma ahayn marka inaad weydiisaan madaxweynaha shaqadiinni ma ka mid tahay inaad weydiisaan madaxweynaha ama xukuumadda aad tirahdaan maxaa loo soo dhisi waayey maxkamadda dastuuriga way ka mid tahay guddi baa jiro guddiga hoosaadka iyo guddiga waxaa jiro muxuu ahay guddiga aan iraahdee guddiga cadaaladda marka guddiyadaas way ka shaqaynayeen waana iyagayna ahayd inay madaxweynaha weydiiyaan waana la weydiiyey dabcan say ila tahay anigu guddigaas kuma jiri marka waxay kolley habsaanka meesha ka dhacay dhinaca madaxweynuhu ka jiraa maxkamadda dastuuriga inay soo dhisaan kadib baarlamaanka la hor keeno baarlamaanka uu ansixiyo maxkamaddii maadaama ay jirin madaxweynihiina lagu soo doortay parliamentarian oo baarlamaankii inuu hor yimaado wuxuu uga cabsanayo anigu ma garan karo
madaxweynaha waxaa daawo ah eedeymaha lasoo aruuriyey maxkamadda loo gudbin lahaa haddana dhibaato ma jirto hortiisa baarlamaanka hortiisa laga akrinayaa wuu naga garbaxayaa meeshuu ka jawaabaya su-aalihii madaxweynaha baarlamaanka hadduu hor yimaado dhibaatada soo gaaraysa anigu ma garanayo oo u diidan yahay inuu baarlamaanka hor yimaado hayse soo quura baarlamaanka is horkeena waa mahadsantahay saas igu jira qadka saas igu jira aamina waa yahay daahir amiin jesow aan u wareegayaa waa yahay aamina saas igu jira daahir amiin jesow dooda mooshinka toos u geli mayno waxaan rabaa inaan eegno mooshin ma rabo aniga mooshin maxay u dhismi weyday maxkamadda dastuuriga si waxaan loo kala saaro maxkamadda dastuuriga eedeeda madaxweynena male wasiirna male waxaa iskale xildhibaanada soomaaliyeed baa iskale waxay ahayd sharcigii maxkamadda dastuuriga in la sameeyo sharci markii la samaynayo ama wuxuu ka yimaadaa wasiir golaha wasiiradaas ka yimaadaa ama wuxuu ka yimaadaa muxuu ahaay 10 xildhibaan iyo wax ka badan ayaa soo curin karta oo golaha baarlamaanka golaha shacabka dhexdiisa ayaa curin karo haddii golaha wasiirada ay noo keeni waayeen ama muxuu ahaay dawladda aan ku dhaliil leh annagaa la rabay inaan curino oo aan golaha baarlamaanka dhex curino marka taa ku fogaan maayo tan ah xildhibaanada labada aba ay isku haystaan oo ah in madaxweynaha uu baarlamaanka hor yimaado dastuurka ayaa qeexaya madaxweynaha markuu doono ayuu baarlamaanka hor iman karaa kalfadhiga baarlamaanka asaa furo markii doono kale uu rabana waa hor iman karaa sidaasaa ku qor madaxweynuhu waa ugu yeeran karaan xildhibaanadooda way dhihi karaan muxuu ahaay madaxweynaha noogula yeero ayay dhihi karaan wasiiradu ku walba oo maalin ay soo fadhiisan karaan muxuu ahaay impeachmentka ayaan madaxweyne ugu yeeraana hadda anigu ma garanayo sharciga meel uu iska qaban doono guddoonka baarlamaankan laga rabaa inay ka tashtaan oo ay ka doodaan waxa weeye walaale xanaaq wax laguma burburiyo waxa wax lagu sameeyaa deganaan waayahay waa arrin fiican waayahay daahir amiin jesow waxaan jeclaan inaan ku weydiiyo waxaa tiri mas-uuliyaddaas waxaa iska laha xildhibaanada 2 sano ayaa baarlamaankiina uu dhisan yahay waxaa hadda qiraysaa in mas-uuliyaddaas adinku aad ka gaabiseen maxay tahay marka shaqadiina maxaad baarlamaan ku tahay marka haddii aadan awoodin inaad xukuumaddii iyo golihii fulinta aad wixii ay sharciga ahayd in lasoo dhiso hay-addii sharci dejinta ayaa tihiin maxaad ku dhisantihiin shaqadiina maxay tahay markaa jawaabaya waxa weeye dastuurka waxaa ku qoran sharci markii dastuurkaa la samaynayay 60 casho kadib in la sameeyo oo ahay oo aan weli samaysnayn 4 sano oo hore in la sameeyay ahayd hadde marba meel unbay iska qaban lahayd annagana hadde hawlo kale muu iska fadhina hawlo kalaan aan hayni marka dalkan waa dal burburi oo haddana nugul oo aan khilaaf u qaadan karin oo aan muxuu ahay delay dib u dhac iyo aan xamili karin wax kasta meeshii la taabto laakiin daahir raalliga xildhibaan daahir sharcigii waddanka haddii maanta la isqabto lagu kala bixi lahaa ayaad leedahay annaga baarlamaanka ah ayaa mas-uuliyaddaas ka lahayn marka sidee loo kala bixi kara hadday timaado arrintan ustaad xasan baan siin doonaa gorlak jawaabta adiga waay xildhibaan daahir wallahi waa fiican tahay in la sameeyo way ahayd waxa weeye 4 sano ka hor sharciga dastuurkan wuxuu qorayaa 9 casho gudahooda in lagu sameeyo maalintii hadda waa 2012 ayuu 9 casho qorayay marka marba meel baa ka dareed annagoo hadda in la qabsanayo in la dacweynayo iyo waxaaba noogu muhiimsanaa shuruucda kale ee burbursan arrimihii amniga xoogga waxyaabaha la saaray waad garanaysaa 4 sano oo hore iyo 2 sanoba waa mahadsantahay waayahay waa arrin fiican waayahay waqti aad ba cariiri igu yahay mawduuci kalena ka hadalna aad baad u mahadsan tahay waayahay ustaad xasan cabdixayle waad maqlaysaa xildhibaanadii soomaaliya daahir amiin jesow baarlamaanka ka tirsan wuxuu leeyahay annaga ayaa iska lahayn khiladkaas waa la ogyahay shaqaa socota 3 awood baa waddanka ka jirta awoodda garsoorka awoodda fulinta oo baarlamaanka ah iyo awoodda fulinta xukuumadda iyo sharci dejinta 3daasi hay-adood oo dhinac siman isna garab socda haddii isqabtaan meel loo laabtaa jirta majrac baa jira marjac loo laabto haddii marjici marka uusan jirin macnahaas marka muxuu ka dhigan yahay waa yahay macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay sharcigii masalan kala saari lahaa hay-adahaas aad sheegtay oo qaarkoodba midkoodba mid kale ka madax bannaan tahay masalan baarlamaanka masalan asaa u ah asaas dowladda soomaaliya waa parliamentarian
asaa masalan golaha wasiirada ansixiya asaa madaxweynaha soo doorta ilaa hadda dalku sida uu yahay siyaasad ahaan marka haddii masalan ilaa waqti dheer oo khilaafaadkan uu soo socday ayaa waxaa laga hadlayay maxkamad dastuuri ah doodaha masalan aniga aan ka soo qayb galay inta badan waxay ahayd khilaafaadkan markay dhacaan waxaa loo baahnaa maxkamad dastuuri ah markaad u fiirsato bal in kale iskaba dhaaf dowladihii kumeel gaarka iska daa dowladihii markay bilaabatay dowlad soomaaliya oo joogto ah oo dowladdii madaxweynaha oo ka ah xasan sheekh waxaan ogsoonahay sanad ka yar waxay isqabteen barnaamijka saacid oo nin ikhyaar ah baarlamaanku xaqii oo ugu lahaa oo ah inuu dowladdiisa jeedsada xitaa oo baarlamaanka yimaado oo sababta masalan xilka ama ha loo sugo ama ha ka tage waa loo diiday inuu baarlamaanka hor yimaado macnaha fawdada waa baarlamaanka dhexdiisa waxaa la yihahdaa meesha alafka mahmahada soomaalida maxay ahayd meesha ay arrinta isku qabala'dahay waa masalan waa baarlamaanka dhexdiisa waxaan ogsooneyn guddoomiyihii baarlamaanka ku timid istiqaalow aaday laakiin kalsoonidii iyo arrintii baarlamaanka ahaa markuu arkay xaalka suu yahay lama gaarinba hadda madaxweynahay taagantahay waxaan ogsooneyn tii xasan sheekh arrinay nafkeedu ahayd run ahaantii bergii masalan waqti cad cariiri waa igu soo laaba waxay tahay baarlamaanka masalan maxkamadan dastuuriga ah ama guddiga cadaaladda oo baarlamaanka haddaysan jirin waxaana jira hadda masalan hadday aniga ma qaba in marmarsiya laga dhigo madaxweyne inuusan baarlamaanka hor imaan eedaha madaxweynaha loo jeedinayo masalan baarlamaanka iska dhaafo dadweynaha soomaaliyeed oo dhan arrintii qalbi dhagax dowladdu waxba kamaysan dhihin waxaan ka hadlaa madaxweynaha iyo masalan iyo dowladdii fulinta xukuumadda macnaha labadoodaba qalbi dhagax ilaa hadda waxba kama dhihin xaaladdeena si isu bedeshay soomaalida way ka warqabtaa halkaan ugu doodayna laakiin xasan cabdixamed adoo iga raaliya qalbi dhagax madaxweynaha soomaaliya qiyaamo qana haddii la yirahdo waa dil toogashaa weeye ama xilka inuu waayo weeye arrin caynkaasa oo hadda bannaankana uu jooga hadda cabdikariin sheekh muuse inagoo aan ku xadgudbayna xuquuqdiisii iyo sharaftiisii bannaanka ayuu joogaa in soomaaliya jilbaha u dhigato dartiis macquul ma taha may horta waxaan fiirinayaa nin muwaadin ah oo soomaali ah oo gaar ahaan ka mid ahaa ciidamadii yaa culus ayadii heshiisyada yaa culus heshiisyadan dambena waa masalan waa kintaal kale lagu daray culeyskii hore culeys lagu sii daray ahayd ayadoon dowladdu ka jawaabin oo xukuumaddii ilaa hadda kama aysan jawaabin madaxweynahana bulshadii masalan xiisahoodu kacay oo soomaaliya oo dhan ah wax qanciya ma dhihin waxaa soo raacday mida hadda masalan geeska afrika annaga hadda aysan mawduuceena tooska aan ahayn oo dowladaha etoobiya iyo eritrea oo wax badan aan ka hadlnay iyo masalan iyo soomaaliya oo iyadoo jabuuti masalan dhinac la iska dhigay arrintaas naftirkeeda masalan waa tan ugu weyn oo masalan arrinta soomaaliya aan anigu ka baqaya xasan aan dhowr jeerna idaacadahan waa ka sheegay in ay xiisadaas u baahan tahay in aad looga fiirsado soomaaliya mawduuc kale calaa kulli xaal khayaano qaar markay arrinta ay timaado oo heshiisyadan hadda masalan socda oo eritrea iyo jabuuti iyo dadka soomaalida ay ka shanqirinayaan madaxweynehena ilaa hadda uusan ka hadlin ilaa muddo 4 bilood ku dhowaadna ay arrintu socoto anigu waxaa ila fiican madaxweynaha baarlamaanka waa talo waay macnaha inuu baarlamaanka hor yimaado oo sharaxo ummaddana ka qanciyo waxa ay tahay in ay ummadda u taalana asagu si gaara uusan u lahayn ay dowladda soomaaliya u taalana u sheego soomaaliya hadda dalkan aan joogno ilaa hadda arrintii brexitka ahayd oo bergii inta codka loo kabixitaanka midowga yurub ilaa hadda mushkiladeeda ma aysan dhammaan xalay bisha habeen hore aftiyaa loo qaadayay masalan ra-iisul wasaaraha karaasiska france waa naqaana oo dhaqaalaha masalan ayada nafskeeda madaxweyneyaashu way hor yimaadaan bulshadan waana la hadlaan waan qabaa baarlamaanka maadaama arrinta ay joogto oo arrintu isku dabeecad laba dabeecad aysan lahayn tan midaan ku saabsan arrinta geeska afrika iyo xataa tii masalan onlf inay jabhad argagixisaa tahay aysan ahayn inkastoo baarlamaanku uu diida taas oo aanu sharaftaasna uu leeyahay baarlamaanka masalan soomaaliya waxaa dowladda soomaaliya questionskaas waa inay ka waaya laakiin su-aalan kuu diinaya maxkamad dastuur ma jirtaa la yiri waaya madaxweynihii baarlamaankaa doortay ra-iisul wasaaru soo magacaabay golo wasiirra ayuu soo magacaabay baarlamaankii baa la wada geeyey baarlamaanku waa ansixiyey ra-iisul wasaarihii golihii dambe uu soo dhisay haddii maxkamada aysan jirin hay-addaana tahay sharci dejintii madaxweynaha soo ma yeeran karto soo lama hadli karto soo wax ma weydiin karto ra-iisul wasaaraha soo ma wax weydiin soo la xisaabtan ma imaan karo hadday soo jaataha ragoma noqonaysa marka haddaysan jirinba maxkamad dastuur runtii meesha hadda ay arrinta ka qorantaha waa halkaas waxa simbal ha laga dhigo hala fududeeyo macnaha maadaama guuxan siyaasadeed oo xal u baahan yahay dowladda aamusnaantii hore iyo dibagurashadii waxba ku socomayn khaladaad kaloo fara badana dhacay masalan sidaan ka warqabno
markaan waxay u baahantahay karaasiskan dowladda inay si cad uga hadasho waa mahadsantahay xasan cabdixil aad iyo aad ma kugu soo laaban doonaa waqtiga aad cariiri inoogu ah waaya xildhibaan daahir amiin jeesow arrin ka duwan markaa bal haddaynu xasaradii ka yaro degno xagga waynu ognahay soomaali geed hoostiis bay fadhiisan jirtay waxbay xalisan jirtay dadka soomaaliyeed maanta walaac bay qabaan meel walba ha joogeen wax wanaagsan ma maqlahayaan baarlamaankii kala qaybsan hogaankii kala qaybsan adigu xildhibaanada soomaaliya khibradan u leh baa tahay muddana kusoo dhex jiray baarlamaanka innaba haba yaraatee ma jirta wax wada xaajood ah meeshuu doona ha ka yimaado ama adinka dhexdeena ha ka yimaado ama cid aan soomaali ahaan ha yimaado ama soomaali dhexdeeda ma jirtaa wax innaba haba yaraatee jira oo wada xaajood ama dabkala qaadid ah oo aad nala wadaagi karto mawlid waa mahadsan tahay arrimahan iyo arrimo ka xun ayaana soo maray oo aan xalka gaari jirnay baarlamaanka soomaaliyeed sidaad umalaynaysiin ma aha wadahadal waa socdaa khilaafka ugu weyn meesha ka jira waxaa waaye guddoonka baarlamaanka saddexda ugu sarreyso ayagana wadahadal baa u socdo oo muxuu ahay dhinacooda xalka ka wadaan guddiyo muxuu ahay iyaga isxilqaamay oo wada waa jiraan shacabka soomaaliyeed marka waxa aan leeyahay waxa weeye inay isdejiyaan oo muxuu ahay ay ku kalsoonaadaan hay-adahooda sharci dejinta iyo muxuu ahay dadka mas-uuliyiinta ee ugu jira waana hubaal arrintan arrin ka darnaana soo martay dowladihii lasoo dhaafay waana xalisin jira waaya daahir amiin jeesow odaga raalliya wax ka daran baana soo maray baa tiri waayahay laakiin baarlamaanka waa kala qaybsan yahay xildhibaano ilaa 100 ku dhow baa gooni taagan oo le madaxweynaha aan soo galo joojino xildhibaanada kale inta badan anagu ma aynu maqan laakiin waxa dhici karta inaysan ku raacsan fikirkaasi ama aysan ka soo horjeedin ama ay ka aamusan yihiin guddoomiyihii baarlamaanka dhinac weeye labadii guddoomiye ku xigeen dhinac weeye xagee loo laabanaya marka haddii intaasoo dhan ay dhacdo waa ka xumahay daahir amiin jeesow qadka ayuu ka baxay waa yahay markan xasan cabdixayle intaan ogso waxaan jeclaa inaan u wareego farxiyo iyo aamino dooda BBC oo sababaha maanta ay u doorato waxaa ka mid ahaa oo gabdhaha xildhibaanadan ula hadasho waxaa ka mid ahaa bal inaan eegno inta badan ragga waynu ognahay hadda inta badan hogaanka rag baa haya waxa inta badan isqabtana rag bay u badan yihiin idinku baarlamaankii baad ku jirtaan wiilal baad dhasheen wiilal baa idinla dhashay rag baa mataqaanaa aad u dhaxdaan marna ma isku daydeen inaad tidhaahdaan war bal markan ragga annagu aynu dhex galno oo aynu u kala dab qaadno inagoo haween ahaan u soconna fikirkaasi marna ma isku soo qaadeen haddii aynu isku soo qaadinne ma u guuxaysaan aaminaan ka hormaraya walaal waa run oo hablaha adoo iga raalliya aamina labadiinina waa ismaqlaysaan labadiina wada hadla ilaa 2 daqiiqa iskaga dhexbaxaya adinku isla sheekaysta isla hadla labadiina okay walaashay farxiyo waa ku salaamay farxiyo muumin aadan ku salaamaya arrinta sideedaba gabdhaha hooyooyinka mar walba gabdhaha way ka qalbi jilicsan yihiin ragga mar walbana wax dumiyo waa ragga wax dhisana waa gabdhaha haddaan ragga idin duqeeyo sababto dagaal oo dhan gabar kama bilowda wuxuu ka bilowdaa ragga siyaasadda soomaaliyana sideedaba waxaa waagii hore gabdhahu way ku yaraan jireen laakiin hadda alxamdulilah gabdhahu way soo bateen sidii kootada haweenka loo sameeyey gabdhihiina waxay hadda aad u dadaalayaan wixii dagaaladii dhibaatada soo dhacayna wixii lagu baxsaday gabdhay ahaayeen mar walbana gabdhaha waxaan ku dadaalnaa annaga in waan la helo oo si nabadgelyo leh oo waddankan uu hagaago oo dhismo waxa dhibaato ku dhacaysa haddii dhib dhaco waa gabdhaha waa hooyooyinka waxa qaxaya wax dhibtoonaya waa hooyo marka intaasaan uga baxayaa annaga waxaan jecelnahay baarlamaanka inuu dhisnaado aamino waa mahadsan tahay aamino run waayo adaa mudan xildhibaan dalkan waxaa soo badbaadiyey 3 sano dagaalka lagu jiro horta waa haweenka soomaaliyeed ha joogaana dalka gudihiisa ama dibadiisa laakiin waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed maanta u sheego oo ugu hambalyeena runtii shalay 3 maalmood waxaa socda shir ay isugu yimaadeen gabdhaha baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal iyo maamul goboleedyada halkaasoo shalay soo gabagaboobay lagana soo saaray runtii war-saxaafadeed ama communique laga soo saaray ayna ku jireen 2 qodob oo muhiim ah ahayd gabdhuhu inaysan ku dhex milmin runtii ragga isku haysta xukunka iyo inay kala dhex galaan
oo ay maaragtay isku soo dhaweeyaan raggii waa runtaa mawlido waa dhalnay raggii way noo dhexeen way nala dhasheen mana ka maarina haddana annaka waxaan ku fiirinaynaa haddaan haweennahay indho kale oo ah sida waddankeenu maanta uu ku sugan yahay iyo xaaladda aan ku jirno iyadoo aan ognahay carruurtanadi inay badihii ku daadanayaan annakoo og inay ku jiraan maaragtiyada adduunka annakoo og inuu deegaanada qaarkood hayso ama oon iyo baahi labadaba ay haddana ma doonayn maanta inuu baarlamaankeena kala qaybsamo ama aan usoo jeesano waa arrin fiican waaya aad baad umahadsad waqtiga aad iigu cariiraya aamina xasan cali warkaaga fiican inaan kaa kala jiro aad baan uga xumahay dhegeystayaasha b b c ayaan siinaya kadibna ustaad xasan baan ku laabanaya iga raallow aamina iga raallow farxiye muumin ayaan ka wadaa hadalka ugu dambeeyey farxiye ahayd farxiye raallow aaminana adigu si ay igu jir waaya dhegeystayaal asalaamu calaykum b b c magacaygu waa xayaad aragsan waxaan kasoo hadlayaa wadanka jabuuti haddaan dooda jimcaha galabta ra'yiga ka dhiibto siyaasadda cakiran ee ka jirta wadanka soomaaliya ay ka dhalatay mooshinkii laga keenay madaxweynaha soomaaliya ay ka keeneen qaar kamida baarlamaanka wadankaasi aniga waxaan arkaa inay wadanka kala qaybsanaan iyo u keenayso dib u dhac xagga dhaqaalaha iyo xagga amnigaba in madaxweynaha lala xisaabtamo waa muhiim laakiinse runtii muhiim maaha in markasta ay xildhibaanadu isku mashquuliyaan mooshin iyo khilaaf siyaasadeed oo wadanka ka abuuraan magacaygu waa cabdisalaan siidow qaasim oo jooga magaalada gaalkacyo haddaan fikirka ka dhiibto mooshinkii daraad laga keenay miska waydhood laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee ka keeneen baarlamaanka soomaaliya iyo gudoomiyaha shacabka soomaaliya runtii waa arin aad aan usoo dhaweynaa maxaa yeelay qofka dib waajibaadkiis uu gudan waayo waa in la marsiyo sharciga iyo dastuurka dalka si uu qabo marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed iyo baarlamaanka soomaaliyeed gudoomiyaha golaha shacabka waxaan leeyahay dastuurka soomaaliyeed wuxuu qabo hala marsiyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo farmaajo waa ka daacad inay dalka wax wanaagsan u qabtaan oo taariikhi ka hadhow laakiin xildhibaanadan maantale madaxweynaha soo gala joojinaynaa dawaaba 29 weliba 14 lahaayeen waana lagu been abuurtay haba hor joogsado b b c waa bashka cadda xasan faarax oo jooga magaalada muqdisho mooshinka laga keenay madaxweyne farmaajo run ahaantii waa mid gudbay oo gudoomiyaha baarlamaanku aqbalay waxaana muhiim ah in madaxweynuhu oo hortago baarlamaanka weydiistaan codka kalsoonida si nidaamka dowladnimada isjiijiid iyo waqti dhumis khilaaf keenay uusan uga dhumin waa inuu madaxweynuhu kalsoonida ka dhaystaa baarlamaanka hadduu helana shaqadii sii wataa hadduu waayana nidaamka aan lagu dhumin khilaaf ee madaxweynuhu iskaga tagaa meesha waaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha b b c da xildhibaan ustaad xasan cabdixayle waxaa maanta aan kasoo hadlayn dhegeystayaashana way ka hadleen waaya adaa noo soo gabagabeynaya ayagoo aad u mahadsan xildhibaanada sharafta leh waqtiga laakiin cariiri buu nagu yahay maanta xaaladda waan u jeednaa soomaaliya qalaasa siyaasadeed meel walba ka jira soomaaliya dhibaata ka taagan waxaa wadanka laga sugay dib heshiisiin baydhabo hadda dhibaata ka taagan maamul goboleedyadii dowladdu way isdagaalsan yihiin waxaa dhibaata ka taagan tahay baarlamaanka kala qaybsan gudoomiyihii labadii gudoomiye ku-xigeen waxaa la sugayey nidaamkii dowladnimada la siblaariyo doorasho hal qof iyo la helo dib heshiisiin dalka nabadiisa laga shaqeeyo meesha hadda ay ka taagan tahana waa baarlamaankii soomaaliya ee magaalada muqdisho ka jiray oo aynu ognahay labada shabeelle inay dowladda gacanta ku wada hayn qaarkood al-shabaab ka taliyo khilaafkan iyo rajaxumadan iyo dhibaatadan iyo xasaradan adoo ka qabiil ahaan dhexdhexaada sidee looga bixi karaa xalku muxuu yahay horta xalka waa in la wada hadlo runta marka laga hadlo sida masalan ka muuqata siyaasadda soomaaliya oo nooga soo muuqata ilaa waqti dheer dowladnimada soomaaliya sidii la rabo kuma socoto macnaha waxaan ka hadla hadda eedeyn maayo masalan hadda madaxda hadda joogto eedeyn maayo waxaan masalan sida qof walba uu arko masalan xasan sheekh waqtigii dowladnimadiisa tallaabooyinkii la rabay iyo meeshii la rabay ma aysan aadin maamul federaal dhisid iyo in madaxtinimada lagu soo laabto iyo arrimo kale iyo gobolladii masalan dalka oo aan si xataa cadaalad ah ama si suurtagal ah aan ahayn in nidaam federaal masalan loogu dhisay midda hadda joogta qaladaadkeeda waxaa moodaa inuuba yahay masalan harqaan inuu yahay wax isdaba socda inuu yahay waxaa fiican oo ila fiicnaan lahayd hor dowladnimadii yaan lagu degdegin yaan dhaqso masalan in wax la rido oo madaxda dhaqso lagu bedelo oo masalan yaan la sameyn laakiin meesha loo baahan yahay waxay tahay maadaama intaasoo xiisaa ay jirto oo xataa baarlamaanka dhexdiisa aan ahayn bulshada dhexdeeda ay tahay
in dowladdu ay masalan si wanaagsan oo toos ah ay bulshada ula soo xiriirto oo mawaaqifta siyaasadeed oo loo baahan in la sharxo layskana qanciyo inay si toos ah u engage gareydo dowladdan masalan eedaha ay leedahay waxaa ka mid ah oo loo baahan yahay inay ka baxdo waxaa la yidhaha dowladda waa tii ugu liidatay xiriirka bulshada iyo wargelinteeda anagu waxaan jeclaan lahaa madaxda in la isu dulqaato oo baarlamaankan uu dulqaato marka in la wada hadlo laysla xiriiro waaya aad baad u mahadsan tahay waa ka xumay waqti cariiri igu ah barnaamijka waxaa soo saaray cabdiruur sheekh maxamed isxaaq xagga kaamirooyinka muuqaaladana waxaa gacan iga sii aadan maxamed cabdisaalimiin anigoo mawlida xaaji cabdiye ayaa idin socodsiinaya barnaamijka tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo